Mareykanka ayaa sheegay in ay bilaabayaan wadahadalo nabadeed oo dhexmara dowladda dhexe Itoobiya iyo falaagada TPLF oo muddooyinkii u dambeeyay ku dagaalamayay waqooyiga dalka Itoobiya. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay in wadahadalada nabadeed ee dhexmaraya labada dhinac in ay bilaaban doonaan doorashada Kenya kadib. Wakaaladda wararka AFP oo soo xigtay Molly FI oo ka mid ah saraakiisha sare ee Mareykanka u qaabilsan Afrika waxay sheegtay dowladda Kenya oo door weyn ku leh xal u helidda colaadda waqooyiga Itoobiya ka taagan horaantii bishii Agoosto waxay martigelisay wadahadaladii ugu horeeyay ee labada dhinac dhexmara. Dalka Kenya oo isu diyaarinaya doorashada guud oo 9 bisha Agoosto dhacaysa wuxuu ka mid yahay dalalka dadaalka badan ugu jira dhexdhexaadinta labada dhinac ee dagaalka dhiiga badan ku daatay ku dhexmaray waqooyiga dalka Itoobiya. Mareykanka, Midowga Afrika, Kenya waxay wadaan dadaal kasta oo ay ku doonayaan in ay ku joojiyaan dagaalka waqooyiga Itoobiya ka qarxay ku dhawaad 20 bilood ka hor. Labada dhinac ee colaadda u dhaxaysa waxay hore sheegeen in ay doonayaan in ay wadahadalo dagaalka ku soo afjaraan in ay yeeshaan. Dagaalka Itoobiya ka socday inkastoo uu u muuqdo mid yara istaagay haddana ma jiraan wax tallaabo oo labada dhinac ay u qaadeen xal u helidda colaaddaasi. Dowladda Itoobiya iyo falaagada TPLF haddana waxay hore u sheegeen shuruudo ay isku xireen in wadahadalada foolka ay yeeshaan. Bilooyin ka hor waxay gaareen xabajoojin labada dhinac looga ogolaanayo in gargaar bini'aadanimo si loo gaarsiiyo deegaanka Tigray oo macluul soo food saartay. Dagaalkaasi oo markii hore ka soo bilowday gudaha deegaanka Tigray markii dambena u sii bilaartay deegaanada Amxaarada iyo Canfarta oo daris la ah gobolka Tigray. Hogaamiyaha falaagada TPLF Gabriel Mekelle oo toddobaadkan saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay wadahadalada dowladda dhexe ee Itoobiya ay la galayaan in loo diyaarin doono shuruudo iyo waqti lagu gabagabeynayo wadahadaladaasi. Shuruudaha ay TPLF wadahadalada ku xirayso waxaa ka mid ah adeegyadii aasaasiga ahaa ee la joojiyay dagaalka ka hor in dhammaantooda dib loo bilaabo, haddii taasi dhici weydana ay dagaalka dib u bilaabi doonaan. Khamiistii, la taliyaha amniga ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Ridwan Xuseen iyo wasiirka cadaaladda Gideon oo la kulmay wakiilo Midowga Yurub iyo diblomaasiyiin reer galbeedka oo u fadhiya magaalada Addis Ababa waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin shuruud la'aan xilli kasta iyo goob kasta inay TPLF wadahadal ay kula galaan. Dowladda Itoobiya oo markii ugu horeysay tan ilaa markii uu bilowday dagaalka TPLF ogolaatay koox diblomaasiyiin in ay booqasho ay ku tagaan caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle. Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay xukuumadda Addis Ababa cadaadis ku saarayay in dagaalka la joojiyo si degdeg ahna wadahadalo nabadeed loo bilaabo. Maamulka madaxweyne Biden waxa uu sheegay in dib u eegis uu ku sameyn doono sidii loo dibcin lahaa cadaadiska hore loo saaray Addis Ababa oo ay ka mid yihiin xayiraadaha ganacsiga iyo socdaalka. Dagaalka waqooyiga Itoobiya u dhaxeeya dowladda dhexe iyo falaagada TPLF waxaa ku dhintay 10 qof halka malaayiin qofna ay ka barakaceen.